السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسر هذا عشرة إني امتحانها برشادة اللقطة بايثون أتكلم ساعتين جنرال كسي الورسمي وحن عشر كنا ما أنت كشرح دونا دول ذا وحنا decision structure أما selection structures برنامج كان سوقرني إلى هذا وحا يسمينين statementي ugu horeyso ayuu imaanay computerku uu fulinay statementki ku xigta ayuu fulinay tan ku xigta ayuu fulinay sidaas ayuu u wadayay ilaa dhamaadka uu ka gaaro programkii marka qaar waxa laga yaabaa inputka userka inuu dabcan u hakado uu sugo oo markuu soo geliyo haddana uu socdo laakiin kor ayuu ka bilaabay ilaa hoos ayuu wadayay si uu dhamaadka ugu geeyo dabcan marka qaar sidaas programmiska aan qorayno uma u fududaanayaan waxaan u baahanahay xogaa yar caqli ah inaan barnaamijkii ku darno oo mararka qaar aan dhihi karno waxaas haddii ay jiraan sidaas samee waxaas tijaabi haddii la arko sidaas yeel iyo wixii la midka ah halkan ay imaanayaa marka casharka maanta aan rabno inaan sharaxno waxa uu ku qotami doonaa in uu barnaamijkii uu decisions uu gaari karo ama uu kala dooran karo statementigan ma la fulinayaa mise lama fulinayo sidii aan qoraynay ahayd dhammaantood fuli si ka duwan inuu sameeyo qaarna uu fuliyo qaarna uu ka tago oo kale ayaan arki doonaa waxa ugu horeeya oo isticmaali doonaa simple if wax lida ama single alternative decision structure if statement inaan dhahno waxaas ma dhaceen hadday dhaceen sidaas samee syntaxka marka ama qaabka ay qormaysay guud waa sidan if condition laba dhibic kabacdina statement 1 statement 2 iyo wixii la midka statementskii ayaan tixi doonaa marka sida aad dareemaysid if waa englishka caadiga ah haddii conditionku marka waa su'aal waxaas ma jiraan jawaabteedu waxay noqonaysaa way jiraan ama ma jiraan way jiraan haddii la dhaho waxaa fulisaa oo qabataa shaqadan haddii ayna jirinna shaqadan ka gudub ayaan leenahay tusaale ayaan ku fahmi doonaa waxaan rabaa tusaale ahaan ka soo qaad in aan dhaho xisaabiyo average-ka qof uu keeno testi oo kale ama imtixaan waxaan rabaa markii aan dhaho saddex maado uu galay qofkan saddexdii maado soo geli saddexdii markii aan soo geliyo inaan xisaabiyo average-koodii kabacdina aan jeegareeyo haddii average-ku uu ka badan yahay 95 inaan dhihi karo qofkan maasha allah ayaa tahay waa perfect ayaa tahay ama 90 hadduu ka badan yahay qofkan hambalyo waa aad ayuu u sarreeyaa skorkaaga waa dadaashay maasha allah aan tusaalahaas qoro kabacdi dabcan isaga ayaan ku dhex sharixi doonaa waxaan leeyahay marka ugu horeyso commentska isticmaalina dabcan waxaan leeyahay get the 3 test scores waxaa soo akhrisaa saddexdii lambar userka uu soo gelinayo waxaan leeyahay test 1 is equal to integer aan u bedelinaa dabcan hadda double waa u bedelin kartaa float waa u bedeli kartaa waxaan leeyahay input waxaa soo gelisaa enter the score for test 1 maadadii koobaad scorekeedii soo geli ayaan leeyahay waa koobiyeynayaa maadaama code isu eg ay tahay saddex mar ayaan qorayaa dabcan waxaan bedelayaa magacyada variableska waxaan leeyahay test 2 halkan iyo test 3 sidoo kale test 2 iyo test 3 saddexdii maado marka aan haysto ama aan soo akhriyo waxaan leeyahay calculate waxaa xisaabisaa the average-kii iyo xisaabi waxaan leeyahay average dabcan hore usoo marnay average si loo xisaabiyo is equal to saddexdoodii isugu kaydar test 1 lagu daray test 2 lagu daray test 3 saddexdoodii marakadan gelinay dabcan sidii aan xiisadeedii hore soo sharaxnay loo qaybiyey saddex ugu dambeynna waxaan leeyahay soo bandhig printy waxaa soo daabacdaa the average is kabacdina average-kii ayaan soo daabacay now haddaa fiiriso waxaan rabaa meeshan waay meesha aan rabno intaas waa intii caadi ahayd aan naqinay waxaan rabaa inaan fiiriyo average-ku ma ka badan yahay 90 hadduu ka bato qofkaan ha loo hambaleeyo ayaan leeyahay waxaan leeyahay halkan if average is more than
90 average ku hadduu 9 ka badan yahay 2 dhibic print waxaa soo daabacdaa congratulations hambalyo print waxaa soo daabacdaa that is great score shaqo fiican ayaa qabatay ayaan leenahay si aan u aragno sida wax u dhacayaan halkan waxaan ku soo daabacayaa print waxaan leeyahay programkaygii the end haddii aad fiiriso halkan sidii aan naqin waay dabcan comments waxaan soo akhriyay saddex number ayaan ka soo akhriyay userka test 1 soo gali test 2 soo gali test 3 soo gali kabacdi waxaan dhahay waxaa ii xisaabaysaa saddexdooda la isku daray oo loo qaybiyay saddex sidii aan rajaynayay average-kii ayuu ii xarayn doonaa average-kii ii soo bandhig intaas marka waa sidii aan naqinay kor uu ka soo bilaabaya uu soo wadi doonaa halkan markuu yimaado laakiin wuu ka duwantaa sidii hore waxa uu samayn doonaa inuu dhaho halkan markuu yimaado if average variable-ka waxa ku jira ay ka badan yihiin 9 sidaan samee haddii aad fiiriso python qofkii soo arkay luqad kale oo programming ah luqadaha kale waxay sameeyaan markii sidaan oo kale la qoro bracket ay furaan sidaan oo kale bracket ay furaan kabacdina bracketkii ayay xiraan hadhow oo bracketka wuxuu muujinayaa marka haddii conditionkan ay true noqoto shaqadan qabo haddii ay false noqotona intaan ha qabanin marka python ma isticmaasho bracketska booskeeda laakiin waxay isticmaashaa indentation wax la indentation waxa waaye in la sikiyo koodka hadaa fiiriso if waxay ku qoran tahay halkan printing waxay ku qoran tahay xoogaa ayaa la soo sikiyey nasiib wanaag marka waxaa fahmayo haddii aad isticmaalaysid pyjam sidoo kale ID-ga aad isticmaalaysid hadduu yahay pyjam ama kuwa kale ee casriga ah way fahmayaan waxa aad rabtid markaan qoray if average uu ka wan yahay 9 2 dhibic inta markii aan dhaho haddii aad fiiriso intuu geynayaa cursor-ka wuxuu geynayaa meeshii saarka bilowgiis ma geynaya xoogaa ayuu soo sikinayaa oo aniga ayuu wuxuu igu fududaynayaa koodhka dambe aan qorayo in uu hoos yimaado iftan ayuu ku tusayaa waxaa dhacaysa mararka qaar markii aad dhamaysato halkaan oo kale markii aan imid inta markaan dhahay weli meeshuu yaallaa waan dhamaystay koodhkii aan dhahayay jeegaree ifta haddii ay sidaas noqoto iyo wixii la midka ah waxaan rabaa marka haddii aan ka baxay iftii inaan hal mar backspace taabto oon delete tirtiro backspace markaan taabto horay ayaan geeyey sida ku muuqanayso kanoo kale wuu ka duwan yahay marka labadan sadar ee halkan aan ku qoray goormee la fulinayaa waxaa la fulinayaa conditionkan haddii ay true noqoto oo keliya average-kii 9 hadduu ka badan yahay ayaa waxaa leeyahay congratulations that's great score haddii laakiin 9 uu ka badnayn waxaa la dhihi doonaa waa laga boodayaa labadan marka single alternative decision structure ama single selection waa lahaa simple if waa lahaa sidoo kale waxay kuu sheegaysaa koodhka halkaan ku qoran ma la fulinayaa mise lama fulinayo koodhkan kale dhan la iskuma haysto dhammaan waa la fulinayaa intan sababtu waa maxay because waa from top to bottom ama sequential execution ayaa ku dhacayo kor ayaa laga soo bilaabaya dhammaantood waa la fulinayaa laakiin halkaan markii lagu yimaado conditionkan ayay ku xiran tahay kuwaan in la fuliyay in kale marka waxaan dhahnay condition ayaa la lahaa intan conditionku waxay sheegaysaa true ama false conditionku marka waa su'aal oo kale waa hebel ma dhaceen haa iyo may noqonaysaa soo maahan haa waxaan dhahnaa halkan waa true mayana waxaan dhahnaa false average ma ka wen yahay 9 haa hadday noqoto shaqadan waa la qabanayaa maya hadday noqotona shaqadan waa laga boodayaa sadarkan ka hor isaga maxaa ku dhacay laakiin sadarkan isaga mar walba waa la fulinayaa sababtu waa maxay because kuwan koruu la mid yahay oo isagu conditionkii ma hoos yimaado laakiin haddii aan sidan haddii aan dhahno oo aan hoos keenno halkan indentationkii haddii aan hoos gelino isagana waxaa la fulinayaa markay tan true noqoto haddii ay false noqotona lama fulinayo marka simple if waa maxay conditional la jeegaraynayaa haddii ay true noqoto koodhka hoos yimaado ee indentationka sigsan waa la fulinayaa haddii ay false timaado conditionkana koodhka indentation ku jiro lama fulinayo marka wuxuu noqon karaa ama hal sadar ama wuxuu noqon karaa sida halkaan kaaga muuqanayso sadarro badan adiga ayay kugu xiran tahay kii aad rabto kan marka ma raba isagu inuu ku biiro koodhkaas oo waa ka tirayaa haddaa fiirsa hal sadarna waa soo baxay si xoogaa ay clear u noqoto iyo wixii la midka koodhkaan aan tijaabino oo aan dhaho execute right kaligaan leeyahay kabacdina waxaan leeyahay run selections wuxuu leeyahay sida kuu muuqanayso waxaa soo gelisaa testi
for score 1 waxaan leeyahay score koowaad waxaan keenay 9 scoreki labaad waxaan keenay 93 kii kale waxaan keenay 96 haddaan fiirso marka 96 isku celiskooda 93 ayuu ii noqon doonaa marka 93 ayuu wuxuu isweydiinayaa 93 waa isku celiskiisa u jeed 93 ayuu wuxuu isweydiinayaa halkan average 93 waa Soomaan haddaan fiirso qaabku wuxuu soo xisaabinayo waxaan dhahnay waxaa soo gelisaa scoreki koobaad waxaan galay halkan 90 waxaa soo gelisaa scoreki labaad 93 kii saddexaad 96 saddexdooda isku dar kabacdin saddex u qaybi 93 ayay noqotay average waxa ku jiro soo daabac average-ku waa 93 markuu soo daabaco wuxuu isweydiinayaa 93 ma ka weyn tahay 90 jawaabtu waa maxay yes ama true kabacdi wuxuu sameyn doonaa inuu dhaho congratulations the score that's great score kabacdina uu dhaho the end ayuu sameyn doonaa wuxuu ku tahay marka congratulations that's great score the end inuu ku leeyahay aan mar kale ku celiyo haddii aan mar kale ran dhaho wuxuu dhahay waxaa soo gelaysaa score koobaad 87 keenay maadadii koobaad maadadii labaad soo gelay ayuu dhahay 54 ayaan keenay maadadii saddexaad soo gelay 91 ayaan keenay isku celiskooda dabcan hadda kor kama xisaabi kara laakiin uu ka yaryahay sida aan dareemayno wuxuu ku dhahay celiskooda 77.333 ayuu noqday iyadu marka ma gaartay 90 sidoo kale isweydiinaya marka 77 ma ka weyn tahay 90 jawaabta halkan ka soo baxaysa condition-kan waa maxay marka maya ama no maya haddii ay tahay kuwa ma la fulinayaa maya waa laga tegayaa that's why uu halkan usoo daabacay the end oo keliya ee uu usoo daabacin scorekaagii congratulations scorekaagii uu badan yahay ma ku dhihin sababtana sida aan sheegnay dabcan waa sidaas ayuu ku tusayaa intaas ayaan kusoo koobaynaa qaybtan waa ku mahadsantiin daawashadiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh